waxaan maanta aan sheegayaa oo cali cabdi xaashi ilaahay khayr ha siiye uu noo keenay 8 neef wuxuu noo sheegay yaasmiin jaamac abdile oo in badan isbitaalka mar walba xusuusan oo dadka TB-da wixii soo dhiibta waxayna soo gaarsiisay $500 waxaa loo sheegay 8 neef ay goystay ilaa iyo xaabadii ilaa iyo waxay ku shideenayeen qudaarta waa dhiibay ninka khayr Allah siiyo gabadha yaasmiin jaamac abdile waxay ka soo noqsay gabdho badan oo meel kasta kala joogeenay in Allah intii soo bixisay waxaan leenahay ilaahay khayrka meel kale ha idinka siiyo yaasmiin waa qof aad iyo aad isbitaalka u tago yaasmiinay adig iyo dadkan xusuusan ee gacanta ku haya isbitaalka ee meel kasta ka caawiya iyo haday umuraha tahay iyo haday TB-da tahay oo gacanta ku haya soo xusa waxaan leenahay yaasmiinay baahid wali halkeedii waan idin baahanahay dadku waa idin baahan yahay bukaanku waa sii badanaya isbitaalka maanta ma sha Allah 61 qof oo TB ayaa jiifa rag iyo dumar 61 qof waxaa jirta ayaan dhaweyto waxaan naga dhamaaday dadkii NGO-ga ahaa TB-da gacanta ku hayay ee kaarmo iyo dadkii guddiga ahaa ee caawin jiray waxay yiraahdeen sanadka waan daalay maadaama 6 sanadood aan quudinaynay TB-da ayaan dhaweyd waan kacnay dhammaan ganacsatada reelaas aan ilaahay khayr siiyo kullay qarashaadka ku baxa waa 1500 kun waa la qaatay oo bil walba joogta loo helayaa shaafici kandani farmasi oo isaga yiray 600 baan bixinayaa iyo kuwa nugaal intii oo iyaguna 4 bixinaya TB-da waan haynaa $1,000 laakiin waxaan naga dhimay $500 waan idin baahanay $500 waxaan u maraynay gabdhaha iyaga qurbaha jooga iyo rag iyaga qurbaha jooga inaan laga waayay maadaama quudiyoonkii TB-du uu yahay halkaana baahi weyn baa yaasmiin ka jirta waxaan rabnaa $500 meel in la saaro oo TB-da ay lacagtooda helaan meel kasta iyo gobol kasta waxa lacagta bixiya oo quudiya dadka ganacsatadooda wasaaradda ilaahay mahad ka siiye daawadooda iyo muxuu haay shaqaalaha tababaran ayay bixiyaan laakiin waxba uma hayaan oo qood ah isbitaalka waa dad inta badan waxay ka yimaadaan tuulooyinka meel kasta ha ahaadeen waa dad aan ehelkoodii joogin waa dad aan dad kale joogin waxa halkaa lagu karayo mooyaan wax kale aan meel kale uga imaan marka anagu waxaan ku dadaalnaa inaan 3 waqti ayna cunto beelin oo cuntadooda ay halkaa ku helaan marka adugu dadkii soo quudin jirayna ilaahay khayr ha siiyaan ee ganacsatada u badnaa kuwa hadda gacan qabtayna ilaahay khayr ha siiyo idinkana waxaan idin sheegaynaa baahida $500 baa maanta noo haray haddii 1500 loo helo sidoodii baan hawsha ugu wadaynaa marka intaasaan naga dhiman walaalayaal awalba gacantaad ku haysteen haddana intaasoo baahiya noo soo kordhay xoolaha aad soo gaarsiiseen iyo cali cabdi xaashi oo intaa mar walba wuxuu keenaa idinkana khayrkiisa meel kale Allah